إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعاذني الله منها وإياكم. والحمد لله walaalayaal jazaakum allahu khayr. walaalaha qolka banaatulmuxsanaat iyo oo ilaa 800 iyo dhowr iyo 40 qof ay ku jiraan, iyo walaalaha babliga qolka addiinu nasiixa ayana babliga nagala socdo caawa salaasa ah biidnillahi almawlaa. dadka Soomaaliya arbacay u tahay, laakiin qurbaha waxaa laga isticmaalaa habeenka dambeeya, laakiin dhulkii Soomaaliya maalinta maaragtay Soomaaliya maalinta horeysa maaragtay habeenka horeeya maalinta dambeysa. marka reer Soomaaliya wixii nagala socda waxay u tahay habeen arbaca, dadka qurbahana waxay u tahay habeen maxaan ku dhahaa salaasa ah. marka wallahi alxamdu oo maanta aanu soomanayn cashuuraagii bisha maxaa la yidhahdaa 10keedii, bishan kalena ay tahay isla 11 October. wallahi alxamdu waxaan halkan ka gelaynaa darsi kamid ah duruusteennii aan soo wadi jiray, darsigii saddexaad ee ku saabsanaa dunuub maaragtay istikfaarta iyo raadadkeeda. ilaahay subxaanahu watacaala dembi dhaafin la weydiisto iyo raadadka ay ku leedahay qofka fardiga ah ee muslimka iyo mujtamaca. walilahi alxamdu walxamdu lillahi wakafaa wasalaatu wasalaamu calaa cibaadi aladiina istafaa washhadu an laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah washhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluh sala allahu calayhi wacala alihi wasaxbi wasalam. ammaan ilaahay ka gadaal iyo salliga rasuulka sala allahu calayhi wacala alihi wasaxbi wasalam iyo salaamta guud oo aynu salaamayno leenahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. walaalayaal jazaakum allahu khayr. ilaahay waxaan weydiisanaynaa inay noo noqoto masaa iyo galab acmaasheenii maanta ciddii soo soontay ilaahay uu inaga aqbalo. stiil qofkii maanta ay soontu ka tagtay berri oo 11 tahay, stiil waa sunne oo nebigu sal ly slam maalinta 10ka in maalin ka horeysa lagu daro ama maalin ka dambeysa lagu daro ayaa banaan. wiig oo dhanna waxa weyaan maaratay waa cibaado oo waxaabay noqonaysaa berri haddii qofku uu soomo, haddana saa dambana khamiis bay noqonaysaa, haddana jumcada ayaamulbiidkii baa bilaabmaya oo bisha 13 bay noqonaysaa, 14 sabti, axadda 15 bay noqonaysaa, isniinta hadduu kusii khatimay isniinna waa 8 maalmood oo soona. rasuulkana waa ogtiin sala allahu calayhi wasalam 8 albaab ee jannada albaab ka mid ah ilaahay wuxuu u diyaariyay dadka soonta faralka iyo kuwa sunnada aba. dadka soonta badan leh waxaa jira albaab khaas jannada u ah oo la yidhahdo baabur rayaan oo jannada laga galo, oo kama galaan dadka soonta badan mooye cid kale. marka albaabkaasina diyaar bidin yahay ciddii qaadanaysa. isniinta maanta ama shalay isniinteeda qofka ku geeyaa maxaan ku dhaha waa 8 maalmood wallahi alxamdu bisha muxaram. qofkii maxaan ku dhaha 10kii maalmood ee bishii soo soomay iyana ina dhaaftay ee dulqacda 10kii cisho fadliga 9kii cisho iyana maartay wallahi alxamdu. bilaha kalena mar walba waxaa ku jira 4 isniinood iyo 5 khamiisood 9 bay noqdaan iyo 3 ayaamul biid ah. bisha dhan ugu yaraan 10 iyo 1 ama 12 bil kastood ka soomi kartaa qofkii maanta dhalinyaro ah oo nicmooyinka ilaahay ka faa'iideysanaya. ramadaanna maxaan ku dhaha kusii daraya. gabdhaha walaalaha iyagu waa ognahay cudurdaaray leeyihiin oo mararka qaarkood soontu waxyaaba badan bay ku dhaaftaa, ama nuujin ama uur ama xanuun ama xayd ama nifaas ama howlo badan. iyagana waxa weyaan maaratay mar walba sanadka o dhan wuxuu yahay soon. marka walaalayaal soonta aan ka faa'iideysano jazaakum allahu khayr. haddii aan marka darsigeenii al-istikfaar haddaanu galo, wallahi alxamdu waxyaabaha ilaahay subxaana watacaala istikfaarta uu ku dhaafo waxaan soo sheegnay acmaasha guud, waxaan soo sheegnay tawxiidka, waxaan soo sheegnay shahaadada aynu habeenkii dhaweyd ka soo hadalnay. dadka shuhadada ah ee shuhadaa u dunya la yidhaahdo iyo shuhadaa ul aakhira oo ilaahay maarata uu dembi dhaafka maarata ummadda ugu dembi dhaafo oo jannada uu ku geliyo. waxaa kamid a masalada shanaad ee caawa aan maaratay istikfaarta ka hadlayna isku baraarujinayna waxa weeye almowtu cala shahaadateyn. qofka ku dhinta tawxiidka maca iqaani alqalb isaga oo
kelimadda tawxiidka qalbiga ka yaqiinsan min xadiisi Mucaad ibnu Jabal radia allahu canhu can rasuuli illaahi sala allahu alayhi wala alihi wasaxbi wasalam annahu qaala rasuulku wuxuu yihi maa min nafsi nafi ma jirto tamuutu dhimanaysa wa hiya tashhadu iyadoo qiraysa an laa ilaaha ila allah ilaah xaq lagu caabuda inaanu jirin ilaahay mooyaane wa annii rasuulullah aniguna inaan ahay ergeygii alle xaggiisa laga caleema saaray ee loo soo diray khalqiga dhammaan inuu xaqa u sheego yarjicu maxaan ku dhahaa maaratay daakum ilaa qalbin muqinin taasoo u laabanaysa qalbi arrintaa rumaysan oo muuqin ah ilaahay tawxiidkiisa rumaysan rasuulku inuu rasuulkii ilaahay yahayna yaqiinsan ilaa gafara allahu rasuulku yiri sal ly slam ilaa ilaahay wuxuu u dhaafaa gafara allahu ilaahay wuxuu u dhaafaa lahaa kelimaddaa tawxiidka ayaa ilaahay dunuub kasta ugu dhaafaa allahu akbar maa sha allah tabaaraka allah qofku inuu muwaxid yahay ilaahay keligii ku xidhan oo aaminsan inuu ilaahay daar yahay cidda wax dhibtaa waa ayo waa allah cidda naafici waa ayo waa allah ciddii ilaahay dartii dabka loogu tuuray nabiyullaahi ibraahim ee yidhi qulnaa yaa naaru kunii bardan wa salaaman calaa ibraahim waa ayo waa allah ciddii madiina saxaabo yar oo kooban mushrikiintii iyo yuhuuddii iyo qabaa'ilkii gaalada iyo qadafaan 10,000 oo gaalo ahi iyagoo 200 ama 1,000 aan gaadhin madiina yowmul axzaab ay damceen inay gacmaha ku qabqabtaan oo la yidhi ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum fazaadadhum ilaa iimaana la yidhi iimaan mooye wax kale umay ziyaadin wa qaaluu xasbuna allahu wa nicma alwakiil waa ayo cidda xisaab ku filan iyo maxaan ku dhaha maaratay xasbuna allah cidda kugu filan wax walba kugu filan waa ayo wa nicma alwakiil cid la tala saartay yaa ugu wanaagsan waa allah waa kelimatu tawxiid qofka taa rumaysan rasuulku wuxuu yidhi qalbigiisa maxaan ku dhaha rumaysan muwaxidka ah altawxiid walaalayaa tawxiidkiina saxa kelimatu tawxiid haddii ay ku hagaagto walaalkayga muslimka ahow waad liibaantay maalinta qiyaame nin baa la keenayaa markaasaa dunuubtiisiibaa waxay buuxinaysaa cirkiga dhulka markaasaa marka kafadii la saaro ayuu is odhanayaa waad halaagsantay markaasaa la odhanayaa kaamaanaan ilaawine hal shay baanu kuu haynaa markaasaa warqad yar baa lasoo saarayaa saxiifo yar saxiifadii dunuubtiisuna waxaa la yidhi 99 saxiifo 100 saxiifo wax ku dhoway ku qoray saxiifadii baa kafada dhinaceeda kala saarayaa markaasuu naxaya odhanayaa warqadaa yaree jeebada lagu qaadaa maxay intaasoo saxiifo ka taraysaa dunuubta arladaada buuxisay saxiifadii yarayd ayaa dhulkay geenaysaa kafadii way cuslaynaysaa markaasuu ilahay odhanaya taasaanu kuu haylo kaamaanaan dulmiin waa maxay kelmaddaasi wa ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah buu ninkaasi yaqiin maarata u rumaysnaa wixii oo dulmi maxaan ku dhaha maarata yani iyo dembi uu soo galayna oo aan shirki iyo gaalnimo hayna ilahay kelmadaas u kaga dhaafay subxaana wa tacaala lidalika baa rasuulku wuxuu yihi yani xadiis saxiixa ilaahay xadiisulqudsi wuxuu ku yihi muuminiinta yabna aadam low aataytanii haddaad iila timaado biquraabi alard wasamaawaat dhulka iyo samaawaadka muggood oo min khadaaya gef ah huma aataytanii aad ii timaado laa tushriki bii shay-a adoon waxba iigu shariig yeelinoo kelimada tawxiid ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah kelimadaa yacni xaq ahaan u dhabeeyey ilaahay wuxuu ihi maaratay kafartu lak waan kuu dhaafayaa dunuubtaas oo dhan walaa ubaali u aaba yeeli maayo soo maaragtid walaalayaal kelimadda tawxiidka
yacni ku dhinta oo ku noolaada oo qalbiga geliya oo jeclaada oo qofka ilaahay jecel waxaa lagu gartaa marka kelimada tawxiid iyo interes adduuniyo ama mid siyaasadeed ama mid dhaqaale ama mid gaal ama mid daneed ama mid muusig ama mid maxaan ku dhaha shahwo markay yimaadaan qofka muwaxidkii kelimada tawxiidka abuu ku dhagaa abubakar sidiiq markay dadkao dhami sakada diidan nabi maxamed dhintay wuxuu hi ayanqusu diinu diinti mii nusqaamaysaa wa ana xayun anoo nool oo kelimada tawxiidka rasuulka ka qaatay sala allahu caleyh wasalam ninka zakada iyo laa ilaaha illa allah muxamada rasuulullah kala kaxeeya wallahi low qaatilanahum buuri wuxuu hi wallahi low manicuunii ciqaalan wa fii riwaaya canaaqan hadday yacni dabar awr lagu xidho hadday ii diidaan oo rasuulka ay siin jireen ama waxar hadday ii diidaan rasuulka ay siin jireen oo masaakiintu lahayd kaanuu yu-adduuna ilaa nabiyi sal ly slam la qaataltahum buuhi waan la dirirayaa ilaa ay ii dhiibaan tawxiidka soomaaliga abubakar radi allahu canhu waa sababta ilaahay sidiiq uga dhigay min annabiyiina waasidiiqiin washuhadaa wasaalixiin waxasuna ulaaika rafiiqa marka kelimada tawxiidka ku dheg ahlu tawxiidka la macnoqo ahlu tawxiidka macooda istaag garabkooda istaag ha ka agfogaan haddaad dunuub gasho ibliisku maarata ha khajilin haysalon dembi baad gashay ahlu tawxiidka ka carar haysalon dembi baad gashay maxaan ku dhaha masaajidada ha tegin haysalon dembi baad gashay ilaahay baa kuu dhaafaya wallahi aladi laa ilaaha ilaa hu ilahay dembiga u dhaafaya haddaad muwaxid tahay yaa cibaadiya aladiina asrafuu laa taqnaduu min raxmat illah buu ilahay leeyahy kuwa israafka naftooda kula yimiyow shaydaanku yuu idin quusin ina allaha yakfiru dunuuba jamiica ilaahay dunuubta dhammaantood uu dhaafa inahu huwa algafuuru raxiim ilaah waa ilaaha maarata dembi dhaafka badan ee raxmadda badan raxmadda ilaahay lama soo koobi karo waraxmatii waasicad kula shay buu ilahay yidhi raxmadaydu waxay waasic ka noqotay shay kasta fasaaktubuhaa liladiina maarata yattaquun yaa maxaan ku dhahdaa loo qorayaa raxmaddaa ilaahay kuwa ilaahay ka cabsada wayu'tuuna zakaa sakada bixiya waladiina hum biaayaatina yu'minuun kuwa aayaadka ilahay rumaysan iyo ilahay tawxiidkiisa marka kelimadu tawxiid mucaad binu jabal xadiiskaa ka qaado xadiiska imaam axmed baa wariyay ibnu maaja calaamatu lalbani wuxuu ku maaratay ku taxsiiniyey saxiixa jaamiciisa maaratay qodobka lixaad waxyaabaha ilaahay uu dunuubta ku dhaafo acmaasha waaweyn ee ilaahay dunuubta ku dhaafo waxaa kamid a walaalayaal ilaahay inaad ka cabsato qofku ilaahay hadduu ka dhowrsado ilahay u dembigiisu dhaafa cabsida jahanama iyo cabsida adduunka ilaahay aad ka cabsataa wallahi ilaahay maarata qalbigaa ku kulmi maayaan laba cabsiyood addoon kuma kulmaan inuu aakhira cabsado iyo inay adduunka cabsado laba ammaanna qofka kuma kulmaan inuu adduunka aamin noqdo iyo inuu aakhira aamin noqdo khud maxaan ku dhaha bikalaami kalaamkayga qaado maxaan kugu yidhi laba cabsiyood qofka kuma kulmaan ilaahay mid buu ku badbaadiyaa inaad adduunka cabsato ood ilaahay ka cabsato iyana inaad aakhira cabsato lagu cadaabo kugu kulmi maayaan maxaa yeelay qofka adduunka ilaahay kaga cabsada ilaahay aakhiro aamin ka yeelaa ilaahay aakhiro ayuu aamin ka yeelaa ilahay wuxuu onayaa maaratay yaa ayatuha nafsu lmutma'ina mar haddaad adduunka baqan jirtay ilaahay qalbigaaga idmi'naan buu ka buuxinayaa yaa ayatuha nafsu lmutma'ina baa laodhanayaa nafyay xasilooni yaa xasiloonida siiyey ilahay baa ku siiyey yuthabitu llahu aladiina aamanuu bilqowli thaabit fi lxayaati dunya leanna addunyadii baa lagu sugay wa fi laakhira aakhirana waa lagu sugayaayo qalbigaagii waxaa laga dhigayaa mid xasiloon yaa ayatuha nafsu lmutma'ina irjicii ilaa rabbiki baa laodhanaya rabbigaa u laabo raadiyatan adoo raalliba mardiya ilahay kaa raalli noqday maxaa yeelay adduunkiibuu qofkani soo baqda amaa qofka adduunka aaminka ilaahay ka noqda makriga ilahay qofka aaminka ilaahay ka noqda een ilaahay ka cabsan ee tiisa tallaabsada ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku ballan qaaday in maxaan ku dhaha fasaca weyn ee aakhiro inaanu ka badbaadin ilahay wuxuu ihi waman ya'manu makr allahi ila alqowm alkhaasiruun makriga ilaahay yaa aamin ka noqda adduunka qoom aakhiro khasaare mooyaane
zalzalada saacadda ayaa la tegaysa qofka mar haddaanu qofku ilaahay subxaana watacaala adduunka kaga baqi jirin. aakhiro iyo naarta jahanama iyo qabriga ayaa ilaahay ballan ku qaaday inuu cabsado oo ilahay kaga aargoosto. lidalika ilahay qur-aanka wuxuu leeyay walaalayaal, cabsidu waxay kamid tahay waxyaaba ilahay laylagu dembi dhaafayo. ilahay qur-aanka wuxuu ihi yaa ayuha aladiina aamanuu taquu llaha, war kuwa iimaanka lagalayo ilahay ka cabsada. yaa ayuha aladiina aamanuu taquu llaha xaqa tuqaati walaa tamuutuna ha dhimanina bali wa antum muslimuun, ilaa wa antum muslimuun, idinkoo ilaahay isu dhiibay mooyaane. maxaa yeelay haddii idinka oo ilaahay subxaana wa tacaala isu dhiibay aa geeriyootaan, ilahay wuu idin dhaafaya. yakfir lakum maarata min dunuubikum, ilahay wuu idin dhaafaya dunuubtiina wuu dhaafaya. yaa ayuha aladiina aamanuu in tattaquu llah bu ilahay yidhi, haddaa ilaahay ka cabsataan yajcal lakum furqaana, ilahay wuxuu idin yeelayaa xaqa iyo baadilku idinkala tusaya. wa yukafir cankum sayi-aatikum, dunuubtiinu dhaafaya. wa yakfir lakum, xumaantiinu ilahay idinka dhaafaya. wallahu dulfadli alcadiim, waa qofka ilaahay ka baqda. qofka ilaahay ka baqda, ilaahay dunuubtiisa sayi-aadkiisu ka aasaya. xumaantuu sameeyey oo dhan baa lagu asturaya, ilahay kanafkiisu addoon ka saaraa. markaasuu yidhaha waxaan ma samaysay haa, ma samaysay haa, ma samaysay haa, adduunkii waan kugu asturay, iminkana waan kaa asturaya. yukafir cankum sayi-aatikum, sayi-aadkii xumaantiisa o dhan waa laga qarinaya, ilaahay kanafkiisa iyo asturkiisu saaraya. wa yakfir lakum, waan kuu dhaafi banaya dunuubtaadii maanta. wallahu dulfadli cadiim. ilahay aad kale wuxuu ihi yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha waquluu qawla sadiida, war hadal wacandhaha oo toosan, yuslix lakum acmaalakum, ilaahay dunuubtiinu wuxuu idin hagaajin acmaashiina. wa yakfir lakum dunuubakum, dunuubtiinu ilahay idlaafi. waman yudic illaaha warasuulahu, qofka ilahay iyo rasuulkiisa adeeca, faqad faaza, kaasi wuxuu liimaanay fawzan cadiima, liibaan weyn buu liimaanay. mar kale ilahay wuxuu ihi ina aladiina yakhshawna rabbahum bilgeyb, markay adduunkii joogeen kuwa ilaahay qeyb kaga baqday, lahum makfiratun dembi dhaafay leeyihin, wa ajrun kabiir, abaal weyn baa ilaahay siinaya subxaana wa tacaala, abaal weyn baa ilaahay siinaya. mar kale ilaahay muxuu ihi cabsida iyo makfiradu way wada socdaan, waa laba shay oo islaazima. ilahay mar kale wuxuu ihi inamaa tundiru nabiyullaahi maxamedo, waxaad u digaysaa man itabaca dikra, cidda maxaan ku raacdaa kitaabka ilahay raacda, cidda ilaahay maaratay laqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dikrikum afalaa tacqiluun. dikrigu waxa weeye maaratay min bacdi dikr, waa ilaahay kitaabkiisa. wax ilaahay lagu xuso oo lagu weynayo ilahay kitaabkiisa ugu weyn. inamaa tundiru man itabaca dikra, waxaad yacni u digaysaa un cidda ilaahay dikrigiisa iyo weyneyntiisa iyo kitaabkiisa raacda. wa khashiya araxmaana bilgeyb, oo ilaahay kaga cabsata subxaana wa tacaala, ilaahay kaga casabta isagaoo maaratay qeyb ka ah. ilaahay markuu horteenna yimaada inaad ka baqato waxba tari mayso. naftii markay qarqarada soo gaadha inaad ilaahay ka baqatood aragtay nafti kaa baxayso waxba tari mayso. fircoon markii uu arkay inuu halaagmayo ayaa wuxuu ihi maaratay waxaan rumeeyey alladii maaratay aamanat bihi banuu israa'iil, reer bani israiil kay rumeeyeen. alaana baa la yihi maaratay waqad cabsayt wa kunta min alkaafiriin, ma haddaad leedahay baa la yidhi adigoo caasi ahaa. markaasaa afka ciid waxaa la yidhi nabiyullaahi, waxaa la yidhi jibriil calayhi salaatu wasalaam baa gunta dhoobo intuu badda ka soo qaaday buu afka ka saara si aan ilaahay raxmadiisu usoo gaadhin. ilay wuxuu yidhi kii ay rumaysay reer bani israa'iil ilaahay tawxiidkiisii buu ilaahay ka duway. halkuu laa ilaha illa allah maxamed rasuulullah dhihi lahaa, oo laa ilaha illa allah maaratay maxaan ku dhaha muusa rasuulullah dhihi lahaa, baa ilaahay ka duway kelmadii. markaasuu waxaa la yidhi jibriilla ka gaadhay oo afkuu ciid kaga shubay, walciyaadu billah. ila waa kaafir, leanna ilaahay ma aqbalo toobadda mar hadday naftu qarqarada soo gaadho. lidaalika cidda cabsidiisa ay anfacaysaa waa ayo. inamaa tundiru, waxaad u digaysaa baa layidhi man itabaca dikra, ciddii xuska ilaahay raacda iyo kitaabka ilaahay. wa khashiya araxmaana, ilaahay ka cabsata bilgeybi, intaynu ka maqannahay. dar ilaahay ayaa maaratay anaan idin jeclay walaalayaal. mayber honest iyo dhammaan walaalaha maaratay dad badan baa le ilaahay dartii baanu kuu jecelay. axabaka allahu aladii axbabtanii fii, ilaahay idin jeclaada dartii jeclaateen,
anna dhammaantiin banaatulmuxsanaat iyo maaratay walaalaha babliga iyo muslimiinta dhammaantood ilahay dartii baan idin jeclay wallahi ilaahay dartii baynu isugu nimiba wax kale oo qasti kale wallahi baanan idinka rabin lacag igama rabtaana idinkama rabo adduunyo isugu maynaa niman waxba maaha adduunyadu aakhiraynu isugu nimi iyo ilaahay xuskiisa subxaana wa tacaala lidaalika baa ilahay wuxuu leeyahay nabiy llahi maxamed waxaad u digaysaa man itabaca dikra ciddii ilahay raacday kitaabkiisa wa khashiya araxmaana ilahay ka cabsatan halkay kaga cabsadeen ma markay hor tagaan maya markuu qofku hortago already wuu halaagsamay laakin bilgayb wuxuu kaga cabsaday isagoo ilaahay qeyb ka ah isagoo adduunka maanta jooga fabashirhu baa layidhi kaa waxaad ugu bushaaraysaa bimakfiratin dembi dhaaf ugu bushaaray baa layidhi wa ajrin abaal ugu bushaaray kariimin wanaagsan abaal ugu bushaaray baa layidhi walaal maanta adduunka walaal cabsidiisa aynu isxasuusino waynu dambaabaynaa laakiin ilaahay mar walba aynu soo noqono shaydaanku dadka wuxuu ku quusiyaa waa dambaabteene ila jooga lidaalika waxaa la yidhaha marka uu shaydaanku dambaajiyo ina aadam markuu ina dambaajiyo ee qofkii dembigiisii xasuusto ee salaadii la aadaamo ee qofka soo weyseysto ee aynu sujuudna buu ogaadaa in ilaahay dunuubtii inaga dhaafay ibliisku markaasuu ooyaa baa layidhi waa xadiis saxiixa rasuulka inaga warinaya sal ly slam markaasuu yidhahdaa maaratay yaa weylataa hoogayge amaranii allahu maaratay an asjuda lahu ilaahay wuxuu amray inaan u sujuudo oo fa abaytu waan diiday oo waxaa lai waajibiyey naarta inaan galo hadda bal u fiirso ina aadan waxaa la amray inuu sujuudo wuu sujuuday oo ilaahay wuxuu waajibiyey jannada inagii shaydaanku taas inoo dhexaysa walaalayaal shaydaanku walaal markuu ku simbiririxiyo ha baqanin soo noqo ilaah ku jecel baad leedahay ilaah kuu dembi dhaafaad leedahay ilaah kuu soo noqonay ilaah aad usoo noqonaysaa leedahay ilaahay ka cabso ilaahay ka cabso rasuulka sala allahu calayhi wacala alihi wasaxbi wasalam maalmaa kamiduu jihaad galay markuu jihaad galay ayaa niman waxaa lasoo qabqabtay dadkii gaaladahaa ilmo qof dumara iyo ilmo ayaa laba col kala raacay markii laysu wada yimi ayaa hooyadii waxay aragtay ilmaheedii oo meel jooga intay hawow kusoo tidhi ayay maxaan ku dhahdaa beerka gashatay markaasaa rasuulku wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wacala alihi wasaxbi wasalam ma u malaynaysaan buu yihi rasuulku sala allahu alayhi waala ali sali slam qofkaa dumari ee gaalada ahi ilmaheedaa ay laabta gashatay inay naar ku tuuri lahayd saxaabadu waxay dhaheen maya wallahi wuxuu yihi ilaahay baa ka jecel addoomihiisa hadday usoo noqdaan inuu naar geliyey iska daayo wallahi ilahay baa ka jecel buu rasuulku yihi sala allahu alayh wala ali wasabi wasalam lidalik ilaahay wuxuu yihi addoonka saalixa ah ama dadka muuminiinta ah xadiisul qudsiga ahaa ee man caadaa lii waliyan ninka dhiba addoon iyo weli aan leeyahay ilahay wuxuu ihi faqad aadantahu bilxarb qofaan jecelahay oo ijecel qofka dhiba ilahay wuxuu ihi faqad aadantahu bilxarb dagaal baan ogeysiiya dagaal baanu cilaamiya wamaa taqaraba alcabdu ilaya mmarata axabu ilay mima aftaradtuhu caley addoonku iiguma soo dhawaado dembigiisa kuma dhaafo yacni wax looga kalgacal badan yahay waxaan ku farad yeelay qofku hadduu waxyaabaha furuudaa ilaaliyo ilaahay buu ka cabsanaya maxaa yeelay hadduu faralka ka tago wuxuu ilahay inuu ciqaabayo qof ilaahay ka baqaya weye ilay waxa weeyaan waxaa la dhahdaa indicators waxyaabo tusminaya cabsida ayaa jira marka lagu leeyahy salaada tuko oo soon oo maxaan ku dhaha zakee oo xijaabka qaado oo wanaagga amar oo xumaanta reeb oo qiraabada xidhiidhi oo maaratay waalidkaa baari u noqo waxaasoo dhami waa tilmaamayaal sheegaya inaad ilaahay ka baqato baqahu maaha maaratay wax afka laga sheegto waa ficil weeye lidalika baa ilahay wuxuu yidhi addoommadaydu iguma soo dhawaadaan aan jecelahay waxaan ka jecelahay waxaan ku farad yeelay leanna waxay tilmaamayaan inay iga cabsanayaan wamaa yazaalu cabdu yataqarabu ilaya binnawaafil xataa axbabtuhu addoonkaygii iguma soo dhawaado waxyaabaha sunnooyinka sida kuwa maaratay soontaynu imanka soomayno salaadaha sunnooyinka yacni sadaqada sunnada ah dacwada sunnada ah dadka in maxaan ku dhaha dar ilaahay maxaan ku dhahda ay u salaamaan yacni cibaadaadka sunnada ah oo dhan iguma soo dhawaadaan xataa maxaan ku dhaha maaratay axbabtuhu ilaa aan jeclaado fa idaa axbabtuhu haddaan addoonkaygaa jeclaado ama addoontayda waxuu yihi maaratay fa kuntu waxaan noqdaa samcu aladii yasmacu bihi
maqalkiisaa noqdaa uu wax ku maqlo khayr mooye shar maqli maayo. wa basarahu aladii yubsiru bih, waxaa noqdaa araggiisa oo wanaag mooye wax kala arki maayo. kuntu samcuhu aladii maarata yasmacu bihi wa basarahu aladii yubsiru bihi, maarata araggiisaa noqdaa wax ku arkayo. wa yadahu aladii maarata yabdishu biha, waxaa noqdaa gacantiisa wax ku taabanayo. wa rijlahu maarata yamshi biha, waxaa noqdaa yacnihii adinkiisa uu ku soconaya noqdaa bu ilahay yidhi. meel khayr la mooye meel xumaanba ilaahay maarata geyn maayo. ilaahay baa ilaalinaya subxaanahu watacaala, ilaahay baa ilaalinaya. wamaa taradadtu buu yidhi xadiiskan, yani go-aan aan ilahay wuxuu ihi go-aanaan qaatay kuma laablaabto. ka taradudii maxaan ku dhaha maratay ka taradudi maaratay qabda maxaan ku dhaha maaratay nafsa cabdi, taradudka yani arrinka kuma noqnoqdo oo yani maaratay hesitation kuma sameeyo. aan go-aankeeda qaadanayo sida aan ugu noqnoqdo addoonkayga naftiisa markaan doonayo inaan diloon oofsado. waa addoonku jecel yahay. maxaa yeelay buu ilahay yidhi yakrahu lmowta, addoonkaygii mowtkiibuu necab yahayoo waa sababtaan u taradudayaan la ma iska daysaa, ilaa addoonkii baan jeclay buu ihi oo wii baryaya oo waxaan is leeyahy wuxuu doonayo u fuli ha iska noolaadee. wa akrahu waxaan diidayaa buu ihi aniguna fitnada iyo dhibaatada kusoo socota. ilaa addoonkan maxaa loo qabanayaa? masiibaa kusoo socota, shaydaan baa kusoo socda, waxaa kusoo socda toobad xumo. si aanu toobadii uga xumaan buu ilaahay doonayaa inuu toobad ku oofsado, inuu dembi dhaaf ku oofsado, inuu khayr ku oofsado, inuu ilaahay jannada geliyaa buu doonaya. ilahay jannadu u wadaa, addoonkiina wuxuu is leeyahay adduunka ha ka dhimana iska joog. ilaahayna addoonkii wuu jecelyay, addoonkina ilahay wuu jecelyay. soo walaal ma aragtid ilahay sidii noo jecel yahay. adigoo geeridii diidaya baa ilaahay ku oofsanaya, leanna wuxuu kuu og yahay meesha aad doonaysa inaad ku noolaato meel ka wacan buu kuu og yahay. meesha adigu aad doonaysa inaad ku noolaato ilaahay fidnu markaa kugu ogyay, fidnadii buu doonayaa ilaahay inuu kaa qaado. hadda balfiis walaaliya. lidalika suuratu lkaaf nabiyullaahi khadir iyo nabiyullaahi muusa markay israaceen waxay soo baxeen wiil yar oo markaa waxoogaa maaratay qurux badan ayaa khadar uu qoorta kala siibay, wuu dilay. muxuu u dilay? markii dambe uu sheegi doonaa. doon maxaan ku dhahdaa ay raaceenna wuu dalooliyey. reero iyo tuulo maxaan ku dhahdaa martisoor waayena waxa weeyaan guryihii buu isaga dhisay. nabiyullaahi muusa ayuu u sheegay saddexdii markii kala tegayeenoo wuxuu yihi haddaa isugu keen dambaysa buu ihi, amaa doontii miyaa aan dalooliyey, waxaan u dalooliyey addoomo ilaahay jecel iyo masaakiin baa bahashan lahayd. boqor baana ku soo socday doonta xoog ku qaadan lahaa si doonta ilaahay ugu badbaadiyo. ila ilaahay baa addoomahan jecele, balay addoomaha ilaahay jecel yahay. waxay shar moodayaan baa khayr ku ah. casaa an takrahu shay-an wa huwa khayrun lakum, wa casaa an tuxibuu shay-an wa huwa sharun lakum wallahu yaclamu wa antum laa taclamuun. ilaahay baa khayrkayna og, inagu ma ogin. waxaan uga dalooliyey buu ihi laanna ilaahay baa addoomahan jecel, waa masaakiin. nin boqoraa maaratay xoog kaga qaadi lahaa. ilaahay baana ina amray yani ilaa halkaasuu addoonkiisi saalixaa kala socda. ilmahan yaraan qoorta kala saaraan dilay buu ihi, laba aabbo iyo hooyo saalixiina dhalay. haddii uu intan sii weynaan lahaa iyagaa ku gaaloobi lahaa. si ilaahay uu iyagiina diintii ugu xifdiyo, ilmahan yarna ilaahay saqiirnimo ugu dilo waxba jannada ay u galaan, ayaa ilmihii yaraa la dilay. soo ma aragtid walaalayaal awliyada ilaahay halkuu ilaahay siduu ku ilaalinayo. kuwan miyaa guryahan kuwan cuntada inoo diiday ee iyagu maxaan ku dhahdaa ina martisoori waayey, guriganaan u dhisay iyagumaan dhisine guriga masaakiin baa leh. aabuhii maxaan ku dhaha iyo waalidkood ay saalixiin ahaayeenoo ay ka dhinteen. ilaahay baa wuxuu amar inagu siiyey saalixiintii dhimatay ubadkoodii iyagoo adduunka jooga inaynu guriga u dhisno. maxaa yeelay guriga alaabaa hoosta ugu jirto oo haddii kale cadow ayaa intay u qaangaadhayaan carruurtan maaratay maalka ka qaadi lahaa. baleg ilaahay siduu jecelyay addoomaha saalixiinta. ilaahay ka baqda walaal, ilaahay ka baqo. ma doonaysaa inaad qofka ugu fiican noqoto? ilaahay ka cabso. ma doonaysaa ilaahay baylahdaada inuu ku ilaaliyo? ilaahay ka baqo. ma doonaysaa gabdhahaaga inuu ilaahay ku ilaaliyo? ilaahay ka baqo. ma doonaysaa ehelkaaga ilaahay inuu ku ilaaliyo? ilaahay ka baqo. ma doonaysaa ilaahay adiga inuu ku ilaaliyo? ilaahay ka baqo walaal. yacni dhul gaaloo loo tago iyo maxaan ku dhaha been la sheego iyo lacag maaratay la qaato iyo maxaan ku dhahdaa baarlamaanka soomaaliya imaka xoog lagu qaato, maxaan ku dhahdaa kambeyn lagu galo iyo waxoogaa lacag la shaqeeyo iyo xoolaanaad lahayn oo xaaraan oo la cuno laguma liibaano. waxaa lagu liibaanaa ilaahay xidhiidhaad la leedahay,
yacni tallaabadaad qaadaba ilaahay khayr buu ka dhigayaa, hadalkaad sheegtaba ilaahay khayr buu ka dhigayaa, iimaan buu ilaahay ku yeelayaa subxaana wa tacaala. lidaalika baa ilahay wuxuu leeyahay nebiga inamaa tundiru wuxunbaad u digaysaa man itabaca dikra cidda ilahay kitaabkiisa raacda wa khashya araxmaana ilaha raxmaanka ka baqata bilgeyb fabashirhu baa layidhi ugu bushaaray kuwaas kuwa ilaahay ka baqday awliyada ilaahaya bimakfiratin dembi dhaaf iyo wa ajrin ajar oo kariimin wanaagsan. min xudayfa can xudayfa waxaa laga wariyay radi allahu canhu qaala nabiyu sala allahu alayhi waala ali waslm nabigu inuu yidhi ina rajulan nin ayaa xadarahu waxaa kusoo xaadirtay almowtu geeridii, nin baa geeridii kusoo xaadirtay lamaa ya-isa ama lamaa ayisa markuu ka quustay min alxayaati, markuu noloshiisii ka quustay ayaa wuxuu u dardaarmay awsaa ahlahu, ehelkiisii iyo carruurtiisii buu dardaaran u sameeyey oo muxuu yihi idaa midtu warnima yahow ehelkaygi iyo carruurtiisii ayaa wuxuu ku yihi markaan dhinto fa ajmacuu li xadaba xaaba soo gura, fa ajmacuu li xadaba xaabadaasoo kathiiran badan, huma dabadeedna awruu naar igu shida, yacni hilibkayga dhintay naar ku shida, xataa idaa akalat laxmi markay naartii hilibkaygii madhiso wa khalasat ilaa cadmi lafihii oo cadcadi ay soo hadrhaan fa khuduuhu lafi qaada oo fa adxanuuhu midxin yacni maaratay mishiinkan cajiinka lagu shiida ku shiida oo ka dhiga maxaan ku dhahdaa yacni dambas ka dhiga, dabadeedna fadharuunii markay daqiiqoo kale lafahaygu noqdaan fadharuunii ku dara filyami badda ku shuba iyagoo dabayla, fii yowmin weliba xaarin aw raaxin maalin weliba maaratay yacni dabayl badani ay jirto. sidii bay yeeleen, carruurtiisii bay keenay, odaygii bay soo qaadeen, xaabadii bay soo gureen, dabkiibay ku shideen, hilibkiibaa dhammaaday, lafiibaa soo hadhay, lafiibay shiideen, lafiibay daqiiq ka dhigeen, lafiibay go ku soo qaadeen, badda xeeligiibay yimaadeen, dabayl bay sugeen, maalin dabayl badan oo hal xabaanay ka hadhayn bay sidaa ugu firdhiyeen baddii. maxaa dhacay? fa jamacahu ilaahay baa baddii u waxyooday, fa awxaa ila alyam baddii bu ilahay waxyooday, fa jamacahu allahu ilaahay baa ninkii isu keenay. ilaahay adduunkiisu waxwey hadduu amar bixiyo fa kaana amarkiibaa ahaanaya. fa qaala lima facalt, addoonkii oo ilaahay hortiisa keenay baa wuxuu ku yidhi fii xayaati albarzakh maxaa sidaa u samaysay, maxaa kugu kalifay? qaala wuxuu yihi ilaahow khashyataka cabsidaada ayaan saa u yeelay. leanna marka riwaayaadka kale xadiiska rasuulka sala allahu alay wasalam riwaayaadka bukhaari iyo muslim qaarkood baa wuxuu ka odhanayaa maxaa yeelay lain qadaranii allahu an yuciidanii, haddii ilaahay awoodo inuu soo celiyo low cadibanii wuxuu cadaabi doonaa cadaaban cadaab oo laa yucadibu axada min alcaalamiin, ilaahay uu cadaabo axad maaratay cadaab aanu cadaabin adduunka dadka ku nool buu ilahay cadaabi doonaa buuhi. leanna waxaan ogahay buuhi dunuubtaan sameeyey ilahay ka galay. ilaahay marka wuu soo celiyo wuxuu ihi fa qaala lima facalta maxaad arrinta ilaahu wax kale iguma kalifin, waxaa igu kalifay khashyataka wa fii riwaaya makhaafataka, cabsi aan kaa cabsanayo. fagafara lahu ilaahay baa uu dembi dhaafay. cabsida qofkaasi ilaahay inuu cadaabi doono uu ka cabsanayay adduunkii uu kaga cabsaday waxay ku kaliftay inuu is yiraahdo ilaahay tirik iyo khiyaamo samee aanu ku soo celin karin. waxay cabsidaasi waxay ilowsiisay inuu ilaahay in allaha calaa kulli shayin qadiir. lidaalika waxay dhahaan culimadu oon idinka faa'iideynaya dadka ku jira imaka walilahi alxamdu darsiga, culimadu waxay dhahdaan kullu ma waqaca fi lkufr laysa bikaafir. qof kasta oo gaalnimo ku dhacaa gaal maaha ilaa la caddeeyo sababta ka dambeysay. leanna xadiiskan ninkani wuu gaaloobo gaalnimo ku dhacay oo muxuu ictiqaadsanaa? wuxuu ictiqaaday inaan ilaahay soo celinaynin haddii intuu carruurtiisa hilibkiisa ay gubaan
oo ay lafihiisa jajabiyaan oo ay dabayl ka dhigaan oo badda lagu daro wuxuu aaminsanaa inuu ilaahay soo celinayn. waa sababta uu ugu qancay in sida la sameeyo. qofku hadduu aamino inaanu ilaahay soo celinayna waa gaal. marka ninkani camal gaalnimo abuu ku dhacay, haddana ilaahay wuu dambi dhaafay. darsigii kasoo horreeyay tawxiidka markaynu ka horreyna waxaynu idhi ina allaha laa yakfiru an yushraka bih wa yakfiru maa duuna dalika liman yashaa. ilaahay hadduu qofku gaaloobo shirki ku dhaco uma dambi dhaafo. xadiiskan iyo aayadda sidee baynuu jamcinaynaa iweydiiya. wax walba ha dhegeysanina, laana ilahay baa wuxuu uhi fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun. war haddaydaan garanaynin dadka ahlu dikriga ah iyo ahlulcilmiga ah weydiiya buu ilahay yihi subxaana wa tacaala. haddii kale waa la halaagsamaya sida maanta ay dhalinyaradu u halaagsameen. sababtu waxa weeye ninkani inuu gaalnimada ku dhaco muu u dooran ee cabsida uu cabsaday baa gaalnimada ku kaliftay. ninkani wuu cabsaday, ilaahay cabsidiisii ayaa waxay ilowsiisay ilaahay inuu awoodi doono inuu soo celiyo. lidaalika le baa ilaahay subxaana wa tacala waxay dhahdaan kullu man waqaca fi lkufr. qof kastoo ficil gaalnimo ah ku dhaca lama gaalaysiiyo ilaa la ogaado sababta gaalnimada ku kaliftay. lidaalika dad badan oo gaalnimo ku dhaca ayaan gaalo ahayn, leanna sababta gaalnimada ku kaliftay ayaa waxay leedahay ta'wiil. marka ninkan ta'wiilkiisu muxuu ahaa? ninkani maadaama ilaahay uu ka baqaayo oo ilaahay uu ka cabsanayo, cabsida ilaahay iyo naarta ka horreysa iyo dunuubtuu galay dartii ayaa wuxuu is yidhi wax kasta oo ilaahay subxaana wa tacaala a ku kala badbaadi kartaan sameen. lidaalika baa ilaahay u dhaafay subxaana wa tacaala. oo maxaa loogu dhaafay? inuu ilaahay yahay mid xaq u leh in laga cabsado. ila cabsida ilaahay cibaadadiisay ka mid tahay. marka nooc cibaadadiisii ka mid a iyo cabsiduu ilaahay ka cabsanayay baa waxay ku kaliftay gaalnimo. dabeedna gaalnimadaa uu ku dhacay, dembigaa gaalnimada uu ku dhacay, ilaahay wuxuu kaga cafiyey lianna camalka ku kalifay gaalnimada inuu galaaba waxay tahayba ilahay cabsidiisa subxaana wa tacaala. masaa'ilka saas oo kale ah kullu man waqaca fi lkufri laysa bikaafirna way badan yihiin. waxaa ka mid a ninkii rasuulka sal alla alay slam yidhi intuu daabadiisa kaxaystay oo meel bannaan isagoo maraya daabadii ay ka luntay ee isiri iska dhimo, ee isagoo meel jiifa rasuulka sala allahu alay wasalam oo isla aad iska dhimatid baa hashiisii oo ay cuntadii saarantahay oo dul taagan buu arko ilahay u soo celiyey. markaasaa farxaddii baa wuxuu yihi allaahuma anta cabdi, ilaahu adigu addoonkaygii baata, wa ana rabbuka, ana rabbigaabaana. akhda abuu rasuulku yihi min shiddati alfarx. farxaddii uu farxay ayaa intuu gefay ayaa halkuu ka odhan lahaa ilaahow anta rabbi, adigu rabbigay baata, wa ana aniguna cabduka addoonkaagii baan haybaa wuxuu ihi farxaddii daraaddeed ilaahow adigu waxaa tahay addoonkaygii aniguna rabbigaa baan ahay. akhda abuu min shiddati alfarx. farxadda intaa leegee ilaahay uu ugu mahadnaqaayey ayaa waxay ku riday inuu lafti gaalnimaa ku dhawaaqo, sida ninkii horeba lafti gaalnimaa uu u amray carruurtiisii. laakiin ilaahay subxaana wa tacaala wuu ku farxayoo ilaahay waxaa ihi lallahu maxaan ku dhaha maaratay ashaddu farxan, maaratay maxaan ku dhaha ilaahay ayaa kaga farxad weyn markuu addoonka ilaahay intuu gafo ilaahay maaratay uu toobad keeno oo ilaahay usoo hoydo. sida midkiin yacni ninkii daabadiisu ay ka luntay uu maxaan ku dhaha farxadda daraaddeed uu u yidhi ilaahow addoonkaygii baa tahay, aniguna waxaan ka ahay rabbiga. yacnihi farxadda yacni maxaan ku dhahdaa uu addoonkaasi ku farxay, ilaahay baa kaga farax badan addoonkiisii gefka badnaa markuu isaga usoo noqdo. allahu akbar. allahuma salli calaa muxamed wacala ali muxamed kamaa sallayta calaa ibraahima wacala ali ibrahim fi lcaalamiin innaka xamiidu lmajiid. marka ninkaasina hadal gaalnimaabuu ku dhawaaqay, laakiin gaalnimo kuma dhicin. marka qodobkan baraarujinaya waxay ahayd waxaa jira kullu man waqaca fi lkufr bay dhahdeen culimadu qof kastoo gaalnimo ku dhacdo lama gaalaysiiyo ilaa la ogaado riisanka gaalnimada ku kalifay. waxaa lamid a dadka maaratay ahlu ta'wiilka ee hadda imika matalan jumhuurka shiicadoo kale ee abubakar iyo cumar iyo gaalaysiinaya lama gaalaysiiyo. maxaa yeelay culimaa usuu ayaa waxaan u laqimtay. nimankan dhalinyarada ah hadda imika dagaalamaya ee culimada laynaya ee masaajidada qarxinaya lama gaalaysiiyo, leanna waxay isleeyihiin itaalka diintii ilaahay baa laga baxay, diinta ilaahay dadka soo geliya,
diinta ilaahay maxaan ku dhaha laysku xukumo diinta ilaahay tiisiba bay u dagaalamayaan oy dadka kulaynayaan lidaalika maadaama ay ahlu ta'wiil yihiin in la gaalaysiiyo maaha laakiin iyagu maadaama aanay aqoon badan ku binaynin shareecadii iyagu intay dadkii gaalaysiiyeen bay weliba gaalnimo ku dilayaan laakiin nagu gaalaysiin mayno leanna waxaynu ognahay in maxaan ku dhahdaa dhiil ku fooraro ooy u baahan yihin maaratay in dhiilka maaratay ku fooraro laga qaado un oo shubhada haysatana in laga faydo ayay u baahan yihin marka waxay dhahaan culimmadu kullu ma waqaca fi lkufr qof kastoo gaalnimo ku dhaca laysa bikaafir ilaa iyo la ogaado riisanka ka dambeeya waxaa ugu dambeyn aan baraarujintaa ka mid a xadiiskii xaatim ibnu abi balta ah rasuulkoo maka u duulaya ayuu warqad qoray islaam buu u dhiibay markaasaa nebigii baa loo waxyooday cali ibnu abi daalib iyo zubayr ibnu cawaam iyo miqdaad ibnu aswad iyo ayuu diray rasuulku wuxuu hi maaratay rawdulkhaakh meesha la yidhaahdo islaan daciinahoo gabowday oo warqad uu xaatim ibnu baltaca u dhiibay oo maka inooga warramaysa inaynu ku duulayno ayay sidaaye qabta islaantii bay soo qabteen wuxuu yihi cali ibn abdaalib warqadii keen waxay tii warqadii ma hayo timahay ku tidicday hoose wuxuu ihi wallahi rasuulka ilahi inaanu been noo sheegin haddaad keeni weydana waan ku maaratay dharkaan kaa dhigaya markay aragtay inaanu cali daynahayn bay warqadii tidiga sii jeesto intay sii jeesteen bay warqadii u dhibtay warqadii baa loo kenay rasuulka xaatib baa loo yeelay xaatib waa saxaabi bedri ah waa raggii beder ka qayb galay xaadib baa lagu yihi yaa maratay rasuulku ui yaa rasuul maratay xaadibow ma haadaa waxani waa maxay xaadib wuxuu yidhi yaa rasuul allah maan gaaloobin manaan ridoobin diinta ilaahayna kamaan tegin haygu degdegina rasuul allow makaynu ku duulaynaa waan ogahay buu yihi inaad maka qabsanaysana waan ogahay saxaabadan kula socotee reer quraysh oo dhanna ubadkoodii iyo ehelkoodii dadkoodii baa maka u ilaalinaya anigu waxaan ahay buu ihi nin lasiqa oo reer maxaan ku dhaha layaal ah oo quraysh aan ka dhalan laakiin gaashaanbuurla ah waxaan is idhi ta'wiilkayga caruurtaadii baa la wada gowracaya iyo ehelkaagiiye cid kaloo kuu bixisana heli mayside kelimadaa yar markay aad maxaan ku dhahdaa nimankii quraysh ee madaxyaweynta ahaa aad kelimadaa siiso ehelkaagii bay kuu badbaadin in ehelkaygii badbaado ayaan warqadaa kaaga qoray buu ihi waxaanan aaminsanaa inaad guulaysanayso laakiin in diintii ilaahay laga guulaysto iyo ilaahay inaan ka hor imaado iyo inaan rasuulka ka hor imaado midna ma rabin laakiin cabsida aan ehelkaygii u cabsanayay ayaa igu kaliftay inaan cadow warqad u diro cumar ibn khadaab oo halkan shaxartaamaya oo le dacni yaa rasuulallah maaratay adrib cunuqahu yacni waa munaafiqi aan qoorta ka gooyay iida baa rasuulku wuxuu ku yidhi wallahi hadalkaa uu yidhi mooye wax kale inaanay ku kalifin cumarow miyaanad ogeyn buu yihi ilaahay inuu ahlu beder ku yidhi isnacuu maa shi'tum waxaa doontaan sameeya fa inii qad kafartu lakum gebi ahaanba dembigiina waan dhaafay cumar baa ooyey allahu warasuuluhu aclam buu yidhi bal ka waran saxaabi jaliila oo warqad gaaladii u qoray warqad in nebi maxamed gaalo looga diro oo la basaaso oo la dhaha nebigiibaa maaratay iyo diintiisiibaa soo duulaysa waa gaalnimo xaad bin abi taca qad waqaca fi lkufri gaalnimo ku dhacay walaysa bikaafir lianna ta'wiilka iyo cabsida uu ehelkiisii u cabsaday ayaa maxaan ku dhahdaa fitno ku noqotay oo ta'wiilkii maxaan ku dhahdaa ka xoog badisay dembiga uu galaya iyo intuu leegyahay iyo in rasuulkii iyo ilaahay maxaan ku dhahdaa maaratay yani warqad laga qoro oo maarata lidalika baa culimadu waxay hahdeen kullu man waqaca fi lkufri laysa bikaafir marka masaladaas waxaan doonayay un inagoo yani mawaadicdii istikfaarta ku jira inaynu sidaa maaratay dhiigga muslimiinta u ilaalino qofka muslimiinta aan cirdigiisa lagu degdegin qofku daahirka isagoo wax sameeyey ayaa ilaahay qalbigiisa khayrka ogyahay ayaa ilaahay qalbigiisa khayrka ogyahay walaalayaal marka waxaan maaratay kusoo jiray dunuubta iyo maxaan ku dhahdaa ninkii maxaan ku dhahdaa yidhi ubadkaygii idila oo iguba oo badda imariya oo maxaan ku dhahdaa kadibna ilaahay u yeedhay ee layidhi maxaa kugu kalifay inaad i rumayso inaad yani i rumaysato inaanan kusoo celin karin markaasuu ilaahu maaratay waxay igu kalifay khashyataka inaan kaa cabsanayay oo faqafara lahu ilahi wuu dembi dhaafay subxaana wa tacaala masalada ugu dambaysa ee istikfaarta iyo dembi dhaafka ilaahay siduu addoomihiisa u jecel yahay aan ka sheegaya waxay tahay gabadh baa jirta iyana waxayd reer bani israa'iil maartay gabadh reer bani israa'iil ah ayay ahayd waxaa la yidhi waxay ahayd dumarka xadiiskaasina waa saxiix xadiiskan imanka aan sheegay ninka bukhaari iyo muslim baa wariyey xadiiskaas gabadha reer bani israa'iiliyana waa xadiis saxiixa rasuulka sala allahu caleyh wasalam
wuxuu ihi gabadh reer bani israa'iila oo dumarka jirhkooda ka ganacsada, yacni jirhkeeday gadi jirtay, nacuudu billah, jirhkeeday ka ganacsan jirtay. maxaa dhacay dabadeedna? maalin maalmaha kamid ay way haraada. kadib waxaa la yidhi ceel ayay soo marta, ceelkii bay ku dhaadhacda, ceelkii bay biyo ka soo cabtay. markay ceelkii biyo ka soo cabtay ayaa ceelkii bay kasoo baxday. markay ceelkii kasoo baxday ee haraadkii uu ka ba-ay, haraadkii markuu ka ba-ay ayay dabadda u soo baxday. waxay heshay fawajadadhaa kalb yalhathu thara min alcadash, ay haraad u dhimanaya oo carabka laalaadiyey oo ciiddii ceelka guudkiisa cunaya ayay usoo baxday. markaasa waxay tii wallaahi laqad asaabahu maa asaabanii, ceelkan waxaa haya haraad wixii haye. ilaahay dartii bay u baqatay, ilaahay dartii bay eygii maxaan ku dhahda maaragtay naxariis baa qalbigeedii ku dhacday, ilaahay dartii. waxaa la yihi ceelkii bay ku laabatay, farajacat waxay ku laabatay ila albiri, ceelkii bay ku laabatay. wa nasaxad mukhayha, labadii kabood ay xidhnayd oo kabahan buudkoo kale ah ayay iska siibtay. biyii bay kusoo dhaamisay, afkay kusoo qaaday, labadii gacmoodna ceelkiibay kusoo fanatay. ilaa ceelka guntiisa intay biyaha tagto ayay ceelkii gacmahay maaratay ayay kaga soo baxaysaa. afkay markaa biyihii kusoo qaaday, afka ayay kabii bay afka intay ku qaniintay bay biyihii soo qaaday. eygii bay waraabisay, haddana way ku noqotay, haddana biyii bay soo qaaday, haddana way ku noqotay. eygiibaa dhergey, eygiibaa dhergey. allahu akbar. ilaahay baa fowqa 7 samaawaat fa shakara allaha, ilaahay baa usoo mahadnaqay. markaasuu yihi addoontaydiye qad kafartu lakum, qad kafartu laki, waan ku dembi dhaafay. bal fiirsada walaalayaa, saxaabadii baa yaabtay ridwaanullaahi calayhim. awalanaa maaratay ajrun fi hada albahaim bay yidhahdeen, yaa rasuula allah, bahaa-imtan iyo xayawaanadan haddaanu quudino miyaanu ajar ka helaynaa? rasuulku nacam buu yihi sala allah alay slam, wa fii kulli kabadin radbin sadaqa. nacam buu yihi, beer kasta oo qoyan hadduu gaal yahay iyo hadduu muslim yahay iyo hadduu xayawaan yahay iyo hadduu maaratay oo aan ahayn muxaarab. qaar muxaaribiina jira, xayawaanada qaar dhiigooda la baneeyey baa jirta, oo maxaan ku dhaha abeesada iyo bahasha xudayada laydhaa iyo bahalka dibqalooca laydhaa iyo bahal maxaa laydhaha maxaan ku dhahdaa maxaan ku dhahdaa dadka qaniinta iyo bahashii kale ee maxaan ku dhahdaa guryaha geli jirtay wasaqada iyo waxaa jira ashyaa kooban. baalka maaratay eyga kelbiga maaratay maxaan ku dhaha cirbaha gooye dad cunkaa iyo ashyaa kooban baa maaratay oo intaba uu rasuul ku talaalay fuwaysiq, kuwa faasiqiinta ah ee aan nabadda ummadda la qaadan. jiirkuu ka mid yahay, lacagta iyo haamaha iyo dalooliya. ashyaa yar marka laga reebo, gaalka muxaarabka ahee ku dilaaya iyo ninka baaqiga ahee intuu waddada galay muslimiintii maxaan ku dhaha gow ka siiyey ee u baahan in laga qabta iyo yacni qof aan crime gelin, qof kasta oon crime gelin oo beerkiisu qoyan yahay qofka wuxu taraa. rasuulku wuxuu ihi sal ly slam, ajar baa idinku sugan, ajar baa idinku sugan. soo ma aragtid? yacni maanta xayawaanka in la ilaaliyo beera loo sameeyo shareecada islaamka, soo ma aragtid? yani xayawaankii ey, inagu soomaalidu had iyo jeer eyda la colbayno, xayawaanada qaar min iskala colna. in lala colooba maaha, haddaanu caquur ahayn oo aanu cirbogoys ahayn, oonu cadow dadka u ahayn, lama ogola. yacni gabadhi jidhkeeda ka ganacsata baa ilaahay ey yacni ugu dembi dhaafay oo ilaahay naxariistii ku geliyey, oo ilaahay cabsidiisa qalbigeeda markuu ku dhacay ee iyada isaga dartii subxaana wa tacaala ay ugu naxariisatay baa ilaahay yidhi soo addoonkayga, soo addoontaydii ma tihid, soo xayawaankan anigu maan abuuran, soo raxmaddan anigu iskama lihi, soo raxmadduna waasix kamaha wax kasta raxmadaydii baan kusii wuri addoon yahay. lidaalika baa rasuulku wuxuu ku yidhi qof dumarana waxaa lagu cadaabay buu rasuulku yihi bisad ay lahayd, bisadii bay xidha. rasuulku wuxuu ihi may furin khushaashkeedii iyo meelaha soo cuntee, waxna may siinin ilaa ay gaajow dhimatay. abtuna naartii ku jirtaa buu rasuulku yihi sala allahu calayhi wacala aalihi wa saxbihi wasalam. marka walaalayaal waxaan ku gebagabeynayaa caawa darsigeena walaalayaal, waxaan ku gebagabeynayaa walaalayaal aan su naxariisano, ilaahay aan ka cabsano. yacni mujtamaca danahooda ninka qabta ee ilaahay dartii u qabta
sida gabadha maartay jidhkeeda ka ganacsan jirtay baa ilaahay ugu dambi dhaafaya subxaana wa tacaala. cidda ummad kasta cidda kaalmaysa qofku ka kaalmo badan yahay ilaahay dartii cabsidiisa dadka uu kaalmeeyo ayaa camalkiisu uga intifaac badan yahay, adduunka uga intifaac badan yahay. lidalika rasuulku wuxu sal slam waxa weyaan maaratay axabu nnaasi ila allah, dadka ilaahay ugu jecel yahay uu dambi dhaafo waxaa kamid ah anfacahum linnaas, dadka ugu intifaac badanle dadka. qofku ka intifaac badan yahay waa malaigta yaa ugu intifaac badan jibriil, leanna waxyigu ummadda u keenaa. dadka yaa ugu intifaac badan ambiyada, leanna waxyigii ummadda u keenaan. ummadda yaa ugu intifaac badan ee ugu ajar badan rasuulka, leanna ummaddii oo dhan buu nooleeyey. rasuulka yaa ku xiga abubakar, leanna rasuulka laftiisii buu nooleeyey abubakar. yaa kusii xiga shuhadada, leanna diintii bay dhiiggii maaragtay iyo maxaan ku dhaha nolosheenii oo dhan bay dhiiggoodii u hureen. yaa kusii xiga saalixiinta muslixiinta ee ducaadda ah, leanna dadkii oo dhan bay doonayaan inay bedelaan. hadabulso yaa kusii xiga kuwa saalixiinta iyagu aan ducaadda ahayn, iyagu naftooda saalixa wo. saasaa loo kala darajo sarreeya. maxaa darajadan loo kala sarraysiiyey? qofba inta uu mujtamaca waxu taraayo, ee uu danaha caamkaa ka shaqaynayo, ee danaha uu dadka ka shaqaynayo, ee muuminiinta uu waxu taraayo ayaa walaalayaal maarata ilahay ajar uu ku siinaya. walaalayaal muslimiinta danahooda ka shaqeeya, walaalayaal sadaqada ka shaqeeya, ehelka ka shaqeeya, waalidiinta u shaqeeya, ubadka u shaqeeya, dacwada ka shaqeeya. yani maaratay maalin walba xaafadiha a ku nooshihiin intaa iskaashataan dad maxaan ku dhaha dhibaataysan, dadka goblanka ah ee aan ubadka lahayn walaalayaal u kaalmeeya, odayaasha gaboobay u kaalmeeya, hooyooyinka u kaalmeeya, kuwa indhaala u kaalmeeya, kuwa lugaala u kaalmeeya. dad meelaha maxaan ku dhahdaa maaratay jidadku aanay ka baxayn dadka jid u bixiya. rasuulka sal ly slam nin jid maraya oo maxaan ku dhahdaa jidkii laani ay ka baxday qodaxli ayaa wuxuu la yaabay laantani si dadkii jidkii marayay ay u dhibtay. laantiibuu jidkii ka gooyey qodaxda lahayd. rasuulku sala allah alay slam min fawqa 7 samaawaat baa ilaahay uga soo shukri naqay, ninkii jannadaa la geliyey. waa qodax laan ah oo uu jidka leexiyey. bal ka warrama walaal dadka yani dadkoo loo shaqeeya bal ajarku leeyahay, ilaahay dartii lagaga cabsado, dembi dhaaf ilaahay lagu weydiisto subxaana wa tacaala. mar kale rasuulka nin reebaadiye ah baa usoo galay, wuxuu usoo galay masaajidkii. markii sidii loo tukanayay ayaa oday reebaadiyaaan dee masaajidii waxba kala aqoon, xagga dambe masaajidka intuu iska faadhumaystay buu kaadi kusii daayay. saxaabadii baa maaratay ku carartay ninkii ridwaanullahi calayhim si ay munkarkiisa wax uga qabtaan. rasuulkaabaa yidhi dacuuhu waardaaya buu ihi, laa tusrimuuhu kaadida ha ku goynina, walaa tudlimuuhu ha dulmiina, dhibaata ha u geysanina. ninkii kaadidii markuu dhamaystay rasuulku si fiican buu la macaamila, yani oo akhlaaq badan. wuxuu ihi 2 wadaamoodoo biyo keena, ciidda qoda, wadaamaa biyaha ku shuba. meeshii baa la nadiifiyey. ninkiibuu u yidhay reebaadiyaha. markaasa wuxu uhi ina hadihi lmasaajid, ina haadihi tani waa masaajidun weeye laa yaslaxu maaratay lahaa, yani saalixu ma aha kaadida iyo nijaasaadka iyo waa axabul amaakini ila allah, meesha ilaahay ugu jecel yahay, waa meel lagu tukado. ninkii reebaadiyaha baa wixii fahmay. wuxuu ihi ilaahow allahuma maaratay laa takfir maxaan ku dhaha maaratay lii maaratay wa muxameda, aniya maxamed mo ilahu ninka lahu dambi dhaafin buuri. rasuulku sal ly slam wuxuu ku yidhi laqad xajarta waasica, niyahow yani raxmad waasica oo ummadda muminiinta o dhan gaadhaysa baad labadeennii nagu soo koobtaye war bahasha waasici buuri. bahasha waasic buu rasuulku ku yihi sal ly slam. walaalayaal marka yani raxmadeenu waa waasic. muxuu ninkaasi nebi maxamed iyo isagoo qura raxmadii iyo dembi dhaafkii gaar ugu yeelay? wuxuu ka xanaaqay sidii loola macaamilay. walaalayaal wuxuu ka macaamilay sidii loola macaamilay. walaalayaal khalqiga adduunka aynu ixsaan samayno. qof kastood ixsaan u samaysaa waxa weeye isagaa ku imanaya, isagaa ilaahay dembi dhaaf ku weydiinaya, isagaa maaratay ku jeclaanaya, ilahay dartii ku jeclaanaya. idfac bilatii hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawa kaanahu waliyun xamiim wamaa yulaqaaha ila aladiina sabaruu wamaa yulaqaaha ila duu xadin cadiim. qodobka kale ee ugu dambeeya darsigeeni caawa intaas baan ku gebagabinayaa xagga istikfaarta iyo dembi dhaafka. waxaan ku kabayaa oo walaalaha banaatulmuxsanaat ee maraykan jooga oo maamulka qolka maaratay banaatulmuxsanaat kamida ilaahay ubax maaratay ilaahay waxaan ku baryay ubaxey ilaahay ubaxa jannada inuu kaa dhigo. yani waa gabadh aada u qiimo badan weeye. hadda yani darsigan dhowr 1000 qof iyo wax ka badan baa dhegeysanaya. iyadaa waxaasoo khayra sabab u ah oo sharcigeeda iyo nafteeda inoogu samaysay telefoonada hadda dhegta aan ku jiro ee dadku maaratay ilahay darti ay u dhegeysanayo. adiga iyo walaalaha kula shaqeeya iyo inta qol ka dhegeysanaysa iyo inta publigee dhegeysanaysa iyo inta maxaan ku dhahdaa maaratay addiinu nasiixa ku jirta
iyo dadka maanta diintii iyadoo maaragtay la eryanayo iyagu diintii ku sabray iyagoo guri gaalo jooga iyo guri islaam joogaba ilaahay waxaan weydiiyey inuu waxa jannada idinka dhigaa ilaahay waxaan idin weydiiyey inuu idinka dhigaa maaragtay kuwa ilaahay aakhiriya adduunka uu naarta ka xoreeyo ehelkooda kaga xoreeyo iimaankooda ilaahay u siyaadiyo ilaahay khayr siiyo xural caynta jannada ka dhigo ilaahay subxaanahu watacaala maaragtay ilaahay saasaan idin weydiiyey ilaahay saasaan idin weydiiyey nafteyda iyo naftiina ilaahay kuwa maaragtay carshiga harhkiisa maalinta aan har kala jirin harhkiisa mooye kuwa ilaahay uu wada hadhayo oo maaragtay biyaha qabo uu ka waraabiyo oo naarta ka xoreeyo oo fitanka ka badbaadiyo oo ilaahay diinta uu ku sugo oo ilaahay iimaanka uu ku sugo ayaan ilaahay maaragtay inantaa magaceeda aan soo qaaday kumaan talagelinay ilaahay baa maaragtay carabkayga soo mariye ilaahay taasaan idinka iyo iyadaba u weydiiyey waxay si gaara u cudsatay in caawa laga hadlo dadka babliga ku jira iyo dadka maxaan ku dhaha qolka banaat muxsinaad ku jiraba walaalaha muslimaadka ah khaasatan dumarkii iyo ragba waxaa kusoo badanaya bahal la dhaha shiishad baa kusoo badanaya shiishadu waxa weeyaan waa qiiq la cabo walciyaadu billah oo xun oo maxaan ku dhahdaa maaragtay xagga caafimaadkana ku xun xagga diintana ku xun xagga naftana ku xun shareecadu waxay ogaataan walaalayaal shan bay ilaalisaa shareecadu waxay ilaalisaa diinta waxay ilaalisaa caqliga waxay ilaalisaa nafta waxay ilaalisaa maalka waxay ilaalisaa sharafta shantaa shay ee hadda aynu sheegnay shantaba way ku xuntay shiishadu waxyaabaha balwadda ama qaadka ama shiishada ama sigaarka ama khamrada ama daroogada ashyaada ilaahay xarimay ee ilaahay subxaanahu watacaala inaga xarimay shantaba way ku xun yihin diinta way ku xun yihin oo qof shiishad cabayaa oo shiishadi qabanaysaa oon maskaxdiisii caadi ahayni diintiisi hoos u dhacday laanna caqligiisi xor maaha qofka muuminka ah maxaa khamriga laynooga xarimay maxaa sigaarka laynooga xarimay maxaa qaadka laynooga xarimay maxaa shiishada laynooga xarimay laanna lama ogola caqliga aada ilaahay ku caabudaysa iyo garashada in intaa in leeg waxaan ilaahaynin inuu caqliga xukumo lidaalika dadka balwadda leh caqligooda waxaa xukuma balwadda lidaalika hablaha qaar baa xumaada inantu haddii sigaarka barato sigaarkii ay weydo lacag ay siisato nin xun bay sigaarkii u doonanaysaa hadday khamriga barato khamrigii ay weydo nin xun bay u doonanaysaa hadday qaadka barato lacag ay siisato weydo nin xun bay u doonanaysaa soo ma aragtid walaalayaal lidaalika ashyaada la xarimay ee balwadaha ahi caqliga maxaan ku dhahay horta diinta waa ku xaaraan oo diinta way xunta oo diintii bay baabiinaysaa kow caqligiina xor kama ahoo qofkii addicted buu noqonayaa wax kastoo addiction sameeyaa waa xaaraam addictionka waxa la qofku wuxuu la qabsado ee balwadda uu ku yeesho laanna ibliis baa balwadda wata qofku marka uu sigaarkii barto ama badeecadii barto ama qaadkii barto ama maxaan ku dhahdaa maaragtay khamrigii barto ama xashishadii barto meel baa qaqle meeshaas dobamin baa la dhahdaa xagga caafimaadka dadka yaqaan baa yaqaana ebotalamaha ama maskaxda nervous systemka waxaa jira qeyb la dhaha ebotalamaasi nerviska waxaa jira qeyb maxaan ku dhahdaa stimulation ku samaysa maskaxdoo waxay soo daysaa waxa la dhahda dobamintu waxa weeyaan ashyaa badanoo waxaa jira jirku markuu qaato maxaan ku dhahdaa automatically hadhow dheecaana soo daynaya marka waxyaabaha addictionku ka dhasho oo dhan waxa weyaan maratay waa waxyaabaha yani dobaminta marka lama ogola qofka muslimka ah shay intuu dabadda yaalla qaato ama darooga ha noqdo ama khamri ama xashiishad ama sigaar ama qaad ama in dobamintiisii dabadeedna maxaan ku dhaha ay ku xidhanto oo hadhow dabadeedna uu addicted noqdo oo maskaxdiisii iyo jirhkiisii iyo shaqadiisii iyo cibaadadiisii iyo ehelkiisii iyo maalkiisii iyo naftiisii inay wixii raad ku yeeshaan lama ogola qofka muslimkii waxa la doonaya inu noqdo qof xor ah waa qof xor ah baa la doonaya marka walaalayaal qof shiishad cabe xor maaha qof sigaar cabe xor maaha qof qaad cune xor maaha that's why ashyaada balwadda oo dhami waxay cadow yihiin diinta waxay cadow yihiin caqliga oo qofkii xor aanu ka nahayn waxay cadow yihiin maalkii oo qofku maalkiisii maaragtay qof shiishad cuna maanta cidi shilin kuu dhiiban mayso sumcadaadii baa xumaanaysaa hadhow shaqaale iyo qof wacanoo bulshadu aaminta noqon maysid leanna dhaqaale ahaan iyo maaratay hoos baad u dhacaysaa qof balwadle maanta qof aaminaa ma jiro leanna dhaqaalihiiba ayay ku saameynaysaa qodobka afraad waxay ku saameynaysaa sharaftaadii sodoh shiishad cabaysa inanteeda yaa raba inuu guursado horta inan shiishad cabaysa dheh wiilka rabaa guursanaya waayo
mid se shiishad cabayo afkiisii iyo maxaan ku dhahdaa ay isu eeg yihiin maxaa la yidhahdaa maaratay maxaan ku dhahdaa dhagax shiilka guduudani yaa maxaan ku dhahdaa maaratay inan siinaya yaa jecel hadda balfirsi qof balwad leh qofna ma jecla walaalayaal qofna ma jecla marka cirdigiisana baaba buu noqonaya naftiisana baaba buu noqonayaayo bahasha shiishada la yidhaha walaalayaal sigaarka way ka xun tahay hadda NHS-ta ingiriiska iyo dhammaan research la sameeyey waxay sheegayaan inay 10 jeer laana sigaarku 1% weeye 99% qiiq aan la controlin oo xun oo sun ah ayuu qofku laabtiisi saaraya wal billah marka jazakumullahu khayr qoladii banaatul muhsanaat way ka baxeen hawada waxaan ku gabagabeynayaa arintaasi waxa weeye waa xaraam iska ilaaliya walaalayaal درسنا halkaas aan ku gabagabeynaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu inta ku jirta dhammaan sheer gareeya walaalayaal sheer gareeya waayo intiina online ka ay haddaa sheer gareysaan qof waliba inta uu la saaxiib yahay ayaa maartay darsiga si akhrisanayso arkaya intaasaan walaal caawin soo gabagabeynaya aan soo duceyno jazakumullahu khayr وصلى الله على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد المجيد الى هيد بركه دمانتين ابين وناكسن صوبريا وجزاكم الله خير